dhammaantiin ba waan idinku salaamayaa waxaan idinku salaamayaa magaca Sayid Ciise Masiix waxaana sanadkan cusub ee 2018 idin rajeynayaa inaad heshaan nabad caafimaad iyo wax kasta oo wanaagsan oo Ilaahay raali ka yahay oo aad ku hamiyeysaan ama niyadda ku haysaan ama aad higsanaysaan waxaan mar kale fursad u helay inaynu isugu nimaadno barashadii ereyga Ilaahay ee Bible-ka Nabi Daawud wuxuu sabuuradii ku qoray isagoo Ilaahay la hadlaya ereygaagu wuxuu cagahayga u yahay laambad wadooyinkaygana iftiin sabuuradii 119 aayadda 105 Ciise Masiix ayaa wuxuu ina baray inaynan ku noolaan karin cunto oo kaliya laakiinse aynu sida aynu cuntada ugu baahannahay ama si ka sii badan aynu ugu baahannahay ereyga Ilaahay waxa uu injiilka Matthew sida cutubka afraad aayadda afraad ku qoran waa qoran tahay dadku waa inaanu kibis oo kaliya ku noolaan laakiinse waa inuu erey walba oo afka Ilaahay ka soo baxay ku noolaado sida daraadeed waa lagama maarmaan inaynu ereyga Ilaahay barano si aynu u garanno waxa uu Ilaahay aabaheen ama abuuraheennu inaga rabo oo aynu isaga xiriir fiican ula yeelano dhowrkii cashar ee la soo dhaafay waxaynu soo baranay midhaha ruuxa quduuska ama dabeecadaha ka muuqda qofka masiixiga ee uu ruuxa quduuska Ilaahay hogaaminayo dabeecadahaas oo ku qoran kitaabka quduuska waxaan akhriyayaa Galaatiya cutubka 5 aayadda 22 laakiinse midhaha ruuxu waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminimo qabownimo iscelin waxa caynkaas sharci ka geysay ma jiro waxaynu soo baranay jacaylka farxadda nabadda dulqaadka naxariista naxariistuna waxay inoo geynaysaa midhaha ruuxa quduuska ee ku xiga oo ah wanaagga naxariistu waxa weeye dabeecad aynu qalbigeena ku hayno oo qalbigeena inagu jirta laakiinse naxariista waxaa ficil ahaan aynu u muujinaynaa wanaagga marka aynu samayno waxyaalo wanaagsan marka naxariistu waxay keenaysaa wanaag ereyga Ilaahay Bible-ka waxaa ku qoran mid wanaagsan ma jiro mid maahe kaasuna waa Ilaah injiilka sida uu Markus u qoray cutubka 10 aayadda 18 haddana iyadoo ay sidaa tahay ayuu Ilaahay ina farayaa haddaynu masiixiyiin nahay sidaas daraadeed u samaada ama u wanaagsanaada sida aabihiina jannadu u wanaagsan yahay ama u san yahay Matthew cutubka 4 aayadda 48 tusaalehayna ugu kama dambaystahay waa Ilaahay waa inaynu dadaal badan u gallo iyadoo ruuxa quduuska aynu kaashanayno ama Ilaahay aynu kaashanayno sidii aynu u ahaan lahayn kuwa ay ka muuqdaan dabeecadaha Ilaahay hadday noqoto jacaylkiisa hadday noqoto naxariistiisa hadday noqoto dulqaadkiisa hadday noqoto wanaagiisa marna Ilaahay oo kale ma noqon karno laakiinse dabeecadahaas bini aadan ahaan inaga soo baxaya Ilaahay wanaagiisa tusaya waxay matelayaan inaynu nahay kuwo Ilaahay rumaysan oo ah caruurta Ilaahay taasna waxa weeye waxay ku dhacaysaa maxaynu u samaynaynaa waxa weeye Ilaahay ayaynu weyneynaa waxa Bible-ka ku qoran wanaagsanaada waxyaalahan wanaagsan sameeya dabeecadaha ruuxa quduuska hayna ka muuqdeen si ay dadku shuquladiisna wanaagsan u arkaan oo ay aabihiina jannada ku jira u amaanaan Matthew cutubka 5 aayadda 16 marka dabeecadahan ma aha wanaaggan halkan laga hadlayo aynu wanaagsannahay ma aha wanaag inagu aynu amaanta isku soo jiidayno oo aynu inagu isla weynaan inoo keenaya laakiin waxa weeye wanaag
ammaanta iyo sharafta iyo weynaanta uu ugu dambeynta ilaahay leeyahay haddaba sidee ayaynu wanaaggan ku kasban karnaa ilaahay wuu wanaagsan yahay shaqada ruuxa quduuska ee inagu jira uu inaga dhex qabtay daraaddeed wuxuu qalbiyadeena ku abuurayaa wanaag taasoo wanaaggaasoo ka muuqanaya nolosheena bini aadan ahaan iskama yeeli karno oo anigii markii hore soo akhriyay aayaddii odhanaysay ma jiro mid wanaagsan mid maahe kaasina waa ilaahay waayo run ahaantii dabiiciyan bini aadan ahaan wax wanaaga inaguma jiro haddaynu bini aadan ahaan nahay waxaynu nahay dembiilayaal waxaa baybalka ku qoran waayo waan ogahay in aan wax wanaagsan igu dhex jirin taas waxaan ula jeedaa jidhkayga wax wanaagsan kuma jiraan waayo waan ku tala jiraa inaan waxa wanaagsan sameeyo laakiin ma sameeyo waayo waxa wanaagsan oo aan doonayo inaan falo ma sameeyo laakiinse waxa sharka oo aanan doonayn inaan falo ayaan sameeyaa kitaabka Rooma cutubka 7 aayadaha 18 ilaa 19 waxa weeye waxyaalo badan bini aadamku ilaahay caqli buu siiyay oo inuu kala garanaynaa wanaagii iyo xumaantii laakiinse hadduusan ilaahay inuu ruuxa quduuska inagu jirin oo inuu hogaaminayn oo aynan ilaahay adeecayn si kastoo aynu bini aadan ahaan isugu dayno inaynu wax wanaagsan samayno inagoo garanayno ayaynu haddana wixii xun u leexana waayo waxa inuu hogaaminaysa dabeecadda jirka dabeecadda camalada jirka aayadaha ka horeeya aayadaha ruuxa midhaha ruuxa quduuska waxa ka horeeya midhaha jirka camalada jirka ama qofka aan ilaahay hogaaminayn waxa weeye cadowtinimo dirir xaasidnimo sino masayr islaaq iyo wixii lamida sixir iyo wixii lamida waxa weeye waxaynu dabiiciyan u leenahay marka aynu inagu iskeen u soconno aynu waxyaalaha ayaynu dabiiciyan u leenahay marka inagu way nagu adag tahay bini aadan ahaan inaynu samayno inaynu wanaagsanaano laakiinse marka aynu nafteena u dhiibno ilaahay oo ruuxa quduuska aynu hogaaminayo waxaynu awoodaynaa inaynu sameeyno doonista ilaahay oo ay naga muudaan midhaha ruuxa quduuska baybalka waxaa ku qoran innagase ilaah baa inoogu muujiyey ruuxa waayo ruuxu dadka dhexdooda yaa garanaya nin waxyaalihiisa ruuxa ninka ku jira mooyaane sidaas oo kalena nina garan maayo waxyaalaha ilaah ruuxa ilaah mooyaane korintiska 1 cutubka 2 aayadaha 10 ilaa 11 ruuxa waxa weeye anigu waxaan ku fikirayo bini aadan ahaan aniga garanaya ilaahay ruuxiisana waxa weeye ilaahay wuxuu ku fikirada ilaahay baa garanaya laakiinse ruuxa quduuska markuu inagu jiro waxa weeye nolosheenni ayuu ka dhex shaqeynaya baybalka waxa ku qoran ruuxeenna iyo ruuxa ilaahay ayaa isku marqaati furaya oo isku xidhmaya ruuxa quduuska muxuu sameeyaa dambigeenu inagu cadeynaya muxuu sameeyaa runtu inagu hogaaminaya muxuu sameeyaa wuxuu inaynu ilaahay adeecno ayuu inagu hogaaminaya inaynu ilaahay adeegno ayuu inagu hogaaminaya inay midhaha ruuxa quduuska inaga soo baxaan ayuu ina awoodsiinaya marka waxaan ku samaan karnaa oo kaliya ama ku wanaagsanaan karnaa oo kaliya marka ruuxa quduuska inagu jiro marka aad masiixi tahay ee aad qof khalad ku samaysid yani ruuxii ilaahay ayaa isagoo ereyga ilaahay ku xasuusinaya ayuu wuxuu kugu abuurayaa walwal iyo faraxsanaan la-aan iyo guilty marka waxaad awood dareemaysaa inaad qofkii ka daba tagto oo aad saaraxaad weydiisatid marka waxa weeye
ruuxii quduuska ayaa mar kasta nolosheenii ku abuuraya inaynu digtoonaano oo dembiga aynu ka digtoonaano oo aynu u digtoonaano inaynu waxyaalaha wanaagsan samayno laakiin qofka ruuxa aan ruuxa quduuska ku jirin waxyaalahaas oo dhan way ka maqan yihiin waayo ruuxii quduuska ma haysto oo ilaahayba dee ma adeecayo marka waxa weeye wanaagaasi waxa weeye waxa ina awoodsiinaya waxa weeye ruuxa quduuska sidaa daraaddeed ayaa ilaahay loo leeyahay u samaada sida uu ilaahay u sayahay taana waxa inoo samaynaya oo ina awoodsiinaya ilaahay bibleka waxaa ku qoran ninka wanaagsan wuxuu maalka wanaagsan ee qalbiga ku jira ka soo saaraa wax wanaagsan waxa weeye marka wax wanaagsan inagu jiraan qalbigeena oo aynu ereyga ilaahay xasuusannahay ruuxa quduuska aynu hoggaansan yahay waxa automatically inaga soo baxaya wax wanaagsan ficilo wanaagsan ayaa laynaga arkaya bibleku wuxuu ku metelay sida geedka oo kale injiilka Matthews sidoo qoray cutubka 7 aayadaha 7 ilaa 8 waxaa ku qoran sidaa daraaddeed geed kasta oo wanaagsan midho wanaagsan ayuu dhalaa geedkii xumase midho xun buu dhalaa geed wanaagsan midho xun ma dhali karo geed xumana midho wanaagsan ma dhali karo marka waxa weeye sida aanay bibleka meel kale waxaa ku qoran sida aanay tiintinku aanu yani canab u bixin canabkuna aanu tiintiin u bixin يعني geedaha waxa weeye qaar baa manaafacaad ya qaarna waxa weeye manaafacaad male ama waxa weeye way kumudayaan haddaad saa ugu taagtay marka waxa weeye waxa weeye qofka waxaa lagu qiyaasay waa in marka aad ilaahay rumaysan tahay ay midho wanaagsani kaa soo baxaan oo laga arkaa ma aha meel kale bibleka waxaa ku qoran rumaysigii aan ficil lahayni waa isdheed waa rumaysi dhintay oo kale markaad ilaahay rumaysan tahay ruuxa quduuska ku hogaaminayo waa inay kaa soo baxaan midho laga arko midho wanaagsan waa in laga arkaa waa in midho wanaagsan laga arkaa masiixiinta waxaa lagu boorinayaa inay aynay wanaag falidda ka daalin ereyga ilaahay bibleka waxaa ku qoran oo wanaag falidda iyaynaan ka daalin waayo waqtigeeda ayaynu wax ka goosan doonaa haddaynaan qalbi jabin sidaas daraaddeed markaynu waqtiga haysanno kulli aan wanaag u samayno khusuusan dadka rumaysiga leh galaatiya cutubka 6 aayadaha 9 ilaa 10 wanaaggeena ka daalin ya waxa weeye intaynu adduunkan joogno ayaynu wanaag samayn karnaa markaynu dhabanno wanaag ma samayn karno ya marka wanaaggeena ka daalin waxa weeye intaynu waqtigan haysano waa inaynu wanaag mar kasta samayno aynu u samayno dadka oo dhan sida halkan ku qoran waxa weeye gaar ahaan kuwa rumaysiga leh marka waxa weeye walaalayaal waxaan halkan idinka akhriyaa 12 qodob oo khaasa oo la xiriira dabeecadda masiixiinta ee wanaagsan dabeecadda masiixiinta laga rabo ee wanaagsan kitaabka Roma cutubka 12 waxaa ku qoran jacaylku ha noqdo mid aan laba waji lahayn sharka karha wanaagga xagsada kalgacayl walaaltinimo isku wada jeclaada midkiinba midka kale ha hor darajeeyo dadaalka ha ka caadsina ruuxa ku kululaada oo rabbiga u adeega rajada ku farxa dhibta u dulqaata tukashada wadideeda ku sii adkaysta oo ku caawiya waxa quduusiintu u baahan yihiin oo shisheeyaha martiqaada u duceeya kuwa insiiya u duceeya oo habaarina la farxa kuwa farxa la ooya kuwa ooya midba midka kale la fikir ha ahaado ha kibrina
laakiinse kuwa hoose la socda kuwa isla caqli badan ha noqonina ninna shar ha ugu celinina ka fikira inaad samaysaan waxa wanaagsan dadka oo dhan hortiisa hadday suurtoodo intaad kartaan nabad kula jooga dadka oo dhan gacaliyaalow ha aarsanina laakiin meel u banneeya cadhada ilaah waayo waxaa qoran aarsasho anigaa leh anaa u abaalmarin ayaa rabbigu leeyahay laakiin haddii cadowgaagu gaajaysan yahay cunto sii hadduu haraadsan yahayna waraabi sharku yuu kaa adkaan laakiinse sharka wanaag kaga adkow waa dabeecadaha laynaga rabo haddaynu masiixiin nahay waxay isugu jiraan kuwa ruuxiya tukasho ya ruuxa ku kululaada waxa weeye rabbiga u adeega waxaa ku jira kuwo markaynu ruuxiyanka samayno kuwo iyaguna ficil ahaan inooga soo baxaya ya jacaylkiinu yuunusan lama wajiilo noqon sharka karaha ya kuwa kale idinku iska hormariya oo darajeeya shisheeyaha martigeliya u duceeya ka kibrina laakiin kuwa hoose la socda waxa weeye markaa waxay isugu jiraan bibaleka waxaa ku qoran ma aha inaynu istusno uun ilaahay ya inaynu ilaahay istusno maaha oo idhahdo waan tukadaa eega sidaan ehludiin u ahay oo intaan yani shalay anoo mooryaan ahaa cimaamad yar iyo macawis yar iyo gadh yar intaan la soo baxo inaan magaranaysaay manjaha iyo madaxa soo maydho oo aan dadki iska weyneeyo ya ma aha aan idhahdo o ilaahay baan u waxeeyaa kan baan u tukadaa salaad igama tagto ya way isku xidhan yihin labada bibaleka waxaa ku qoran qalbigiina oo dhan ilaahay iyo xooggiina oo dhan iyo caqligiina oo dhan iyo niyaddii oo dhan ilaahay ka jeclaada dariskiinana sida naftiina u jeclaada oo isku xidhan yihin yani ma odhan kartid sidaan hore u sheegay ilaahay baan jecelahay dadkaan nacaya marka waxa weeye weligayba haddaan yani ilaahay aan ducaysto ama aan magaranaysaay wax kasta sameeyo laakiin haddana aanan halkan jacayl muujin haddaanan dadkii kale aan iska weyneeyo oo aan kibir badanahay haddaan qof marka wax yar laygu sameeyo ana 5 jeer aan ka aargoosto ya haddaanan magaranaysaay dadka shisheeyaha iyo kuwa masiixiyiinta iyo kuwa aan ahayn iyo kuwa cad iyo kuwa madow iyo kuwa cascas aanan soo dhaweyn iyo kuwa qabiilka ilaah iyo kuwa kale aanan soo dhaweyn xaqooda aan siin waxay weligayba aan ilaahay caabudo waxa weeye waxaasi waxba matarayaan marka waxa weeye walaalayaal haddaynu masiixiyiin nahay waa inay naga muuqdaan wanaag waa inaynu naga sameeya wanaaggaas oo mar labaad baan ku celinayaa wanaag ilaahay ammaan u soo jeedaya si ay dadku shuqulladeena wanaagsan u arkaan oo ay u ammaanaan aabbaheena jannada ku jira oo ay u yidhaahdaan war qofkaasi waa wanaagsan yahay wax wanaagsan buu sameeyaa bal aan weydiiyo waa maxay rajada u haysto waa maxay muxuu wanaaggan u samaynayaa taasina waxayna siinaysaa fursad oo aynu markaa ilaahay uga markhaati furno iyo waxaynu aaminsannahay marka walaalayaal waxaan rajaynayaa inaad wanaag samaysaan oo ay uusan sharku idinka arkaan laakiinse sharka aada wanaag kaga adkaataan haddana aynu ducaysano ilaahow waxaanu kaaga mahadinaynaa wanaaggaaga wanaag oo dhammi adigu kaa yimaadaa laakiinse ilaahayow waxaadna siisay ruuxaaga quduuska ruuxaaga quduuska daraaddeed annaguna waxaanu awoodnaa intii karaankayaga inaanu samayno wanaag oo aanu u samayno dadka kale waxaanu ilaahu kaa barayaa inay dadka soomaaliyeed ay dhegeysanaya
ay isu sameeyaan wanaaggaas waa wanaag run ah oo aan ahayn istus laakiinse wanaag ku dhisan inaad waayo adiga ayaa iyaga u wanaagsanaa intaa waxaan kugu weydiisinayaa magaca Sayid Ciise Masiix aamiin